si qalbiga loo cilaajiyo macaankaas loo soo ceshado oo salaaddii ay kuu dhadhanto oo aad xusuusato inaad rabbigaa hor taagan tahay. nin baa i weydiiyey su'aal, wuxuu yidhi maxaa marka imaamku xoogay dheereeyo salaadda aan u kahannaa oon u nacnaa? marka isagu waa daabit sarkaal askari oo wasaaradda daakhiliya ka shaqeeyo wey. meesha aan fadhinnaana waa xafiis. su'aashuu iska kay weydiiyey, aniguna su'aashiisii su'aal kaleaan ugu jawaabay. waxaan adigu haddii hadda daabit baa tahay halkaad ka shaqaysaa, haddii wasiiru daakhiliya haddii uu caawa kuu yeedho oo lagu yidhaha ballan baa lagu sameeyey, waxaa ku raba wasiiru daakhiliya inaad la kulanto 12 habeennimo, ma tegi lahayd mise waxaad dhihi lahayd wallahi wakhti dambe waaye? wuxuu yidhi may waa tegi lahaa wasiiru daakhiliya keeb seen u tegay. waxaa idhi dayib, markaad tagtay wasiirku hadduu kaa yar mashquulay oo xoogay bannaanka lagu yar istaajiyey lagu fadhiisiiyey meesha lagu sugo madiida maya waa sugi lahaa. ay markaa hor fadhiisatay oo wasiirkii la sheekaysanaysay saacadda miyaad fiirin lahayd marbaad odhan lahayd waa nugu dheereeyey hadalkaa? mayuu yidhi wallahi yani xaqiiqatan haddaan kaaga warramo maya. waxaa yidhi kaas marka wasiirkii weeye. فكيف أميرك هدو قويا لأميرك ودن كان قوم سريا لنا قدر ماشي أميرك هدي قويا ركور ها إسكبر دافع أميرك يعني هذه أمنيتي إذا بواي إنسان قويا لها هذه الوقت أميرك وقت اللبية ومنك كودها بين كفر به ليش واتقلها ليش بان محجرا هذا هو الأمير. وحال أنا كل شيء sababta markaad ilaahay hortiisa aad istaagto oo kula dheeraanayo la hadalka ilaahay, laakiin amiirka hortiisa uu hadalku kula dheeraanayn inaan ku sheegaan, laana waxaad yaqaansan tahay amiirka ama madaxweynahan hortaada jooga inuu xaajaadkaaga oo dhan kuu gudi karo. waxaad u baahan tahay inaad ka heli karto waxyaalahaad sii xusuusanaysaa imise arrin baan ka dhammaystaa, laanna waddanka o dhan buu u taliyaa, wasaarad kasta isaga xukuma, xaajooyinka marka wasaarooyinka iyo kaaga xidhxidhan inuu kuu xallin karo ayaa dareensan tahay. marka saas awgeed wakhti kasta ha noqotee diyaar baad u tahay inaad qaabisho. wakhtiga uu kuula fadhiistana waad ku macaansanaysaa, waad jeclaanaysaa inaad la sii fadhido. waa sax wey. waxaan tan naga maqan ee aan laanahay waa taas maca allah. ilaahay waa hor taagannahay, laakiin inuu xaajaadkeenna noo gudi karo ma yaqiinsanin. salaaddii waa galaynaa allahu akbar, qalbigeennana waxay ku wareeganaysaa hebel iyo hebel talow wax makuu qabanayaan. rabbulcaalamiin baad hor taagan tahay, makhluuqaadkan oo dhanna taxta qabdatihi, isagaa wada xukuma, boqorrada iyo umarada iyo adduunkao dhanba fii qabdatihi, yafcalu maa yashaa. marka haddaad og tahay yaqiinan dhab ahaan in addoon ilaahay aad tahay, rabbigaa markaad hor taagan tahayna xaajadaada uu isagu kuu gudayo, ilaahayna si dhaba uu qalbigaaga arrintaa uga daalacdo, waxa waaye maadan dherarsateen, waa ku macaansan lahayd dikrigiisa. marka taa allahna waafajiya ikhwaani walaalayaal, fii haadihi daqaa'iq almacduuda waxaan xusuusinaynaa rabbigeen jala jalaaluh, الله الذي لا إله إلا هو، الله أن إله كلا جرين، رب هذا الكون هو الله. صحيح إلهي أنه عندها كما أردنا أدونك أنت جونا إن شاء الله في الآخرة ونركضنا، ولكن إلهي جل جلاله آياته سكونك هي عجائب قدرتي سؤونة الصيد، وحين قفل انتهينا كو يقين سنو يقين طبعه جازمة